kusoo dhawo maalmoodnaaga wax podcast ay soo saarto Somali Public Agenda. Magacaygu waa Mahad Waasuge, waxaan agaasimaha Somali Public Agenda iyo sidoo kale matakaliyaha maalmoodnaaga podcast. Waxaa dhawaan soo gabagaboobay doorashooyinkii dowladaha hoose ee Puntland oo soo bilowday sanadkii 2021. Xarunta horumarinta iyo cilmi baarista Puntland waxay si gaar ah uga shaqeynaysay doorashooyinkaas. Sida ay u dhaceen doorashooyinka Puntland iyo casharada laga baran karo ayaan ku gorfayn doonaa podcastigan. Waxaa marti igu ah Cabdinaasir Buraale oo agaasimo ku-xigeenka xarunta PDRC. Cabdinaasir, marka hore kusoo dhawow SPA iyo maalmoodnaaga podcast. way aad iyo aad baan mahadsantahay Mahad. runtii aad baan ugu faraxsanahay booqashadayda xafiiska SBA iyo inaan marti ku ahay barnaamijka maalmoodnaaga. mahadsanid. Shukran. Cabdinaasir, waxaan rabaa marka hore inaan ku weydiiyo inaad bal xoogaa noo sharaxdid sidee u qabsoomeen doorashooyinkii dhowaan lagu soo gabagaboobay Puntland iyo sidoo kale sida ay xisbiyada ugu kala guuleysteen kuraastii lagu tartamayay ee saddexda gum. way aad iyo aad baad u mahadsantahay. Mahadow kolley waxay ku xiran tahay waqtiga aan haysano hadba inta uu la eg yahay in laga sheekeeyaa waxay qaadanaysaa xogaa muddo hadba sidii loo soo koobay ku xiran tahay. laakiin haddii baan isku dayo inaan aad maaragtay usoo koobo taariikhdan aan meelaheeda muhiimka aan xuso. geedi socodkan Puntland waxay si toos u bilowday 2011. Okay. markaas isku dayga u horeeyay oo ku bilowday in dastuurkana stateka dastuurkiisana la dhammaystiro shuruucda iyo maaragtay asaasiyaadka muhiimka u ah in doorasho qof iyo cod la aado. markaasaa seeska loo sameeyey waana markii u horeysay oo la dhisay guddiga doorashooyinka. intaa wixii ka dambeeyey marka guddiga doorashooyinka u horeeyey wuxuu isku dayey doorashadii inuu qabto markay 2 maalmood ka dhimanayd qalaase ka dhacay Qardho iyo Daalkuurooya Gaalkacyo adu meel ka mid ah Puntland. waxa 2013 July. Okay. marka 15 ay ahayd July inuu wadanka dhan ay ka dhacay deegaanka dhan ay ka dhacdo doorashadu. marka adu xogaa arrimo siyaasadeed iyo maaragtay buuq markaa jiray oo aan la iska qancin darteed waxay sababtay in dad ku dhinto qalaase yar aan badnayn markaa risaasaa loo joojiyey. madaxweyne markaas joogay markaa wuxuu doorbiday in nabadda dhinaceeda la isxijiyo mar hadday nabadii electionka timi nabadda in la isxijiyo. markaas waxaa lagu noqday qaabkii hore haddana madaxweyne kala bedelay. Puntland mar kale waxay ku noqotay qaabkii soo xulista madaxweynihii markaas madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas oo markaa isaguna yimi 2014 January baa bedelay laftigiisu meelahaas uu ka amba qaaday. guddigii saddexaad buu sameeyey. guddiga labaad buu sameeyey. guddiga labaadna waxbay isku dayeen aduu shuruucdii waxbaa laga bedbedelay. wax badan uma qabsoomin. madaxweyne Siciid baa markaa 19 yimi oo markaa isaguna guddi sameeyey. guddigii saddexaad buu sameeyey ku meel gaar. marka iyaguna markaa amba qaaday. inta badan seesku waa samaysnaa oo shuruucda waa jirtay waayo aragnimadu waa jirtay ururada siyaasadda waxbaa ka samaysnaa. wixii unbaa lagu dul dhisayey meelaha markaas loo arko in dib u noqosho ay u baahan tahay baa dib loo fiirinayay. waxyaabaha la isleeyahay waxa laga bedelo waxbaa laga bedelay aduu qolo walbaba markaasay ula muuqato. laakiin framework guud oo kore isma bedelin. tusaale ahaan in Puntland ay marka hore furdho isdiiwaangelinta ururada siyaasadda. markaas waxaa u furan cid walba inay maaragtay isdiiwaangelin karto intay isu tagto. waxaa mamnuuc ahaa ururo yeelan kara sumad reer ama sumad diin. marka shuruudo aan badnayn baa ku xirnaayo xisbiyadeen ku qornaayeen shuruudahaas. marka hore in la furo tartanku furmo. waxaan umaleeyaa meelaha ku kala duwantaa umaleynaya hadda hindisayaasha halkan laga wadooday muddo iyo xaggaas dhinacaas waxaa marka hore soo horeeya in la helo ururo siyaasadeed. ururada siyaasaduna ay tartanka galaan dowladaha hoose. markaas ka bacdina xisbiyada ururada hela maaragtay inta u badan inay helaan saddexda urur ee ugu dadka badan. walow iyada laftigeeda markii dambe wax laga bedelay. marka aduu meelahaas soo madhay aan ku soo dhawaaday markaa 2021 bishii October bay ahayd markii ugu horeysay oo Puntland ay 3 degmo doorasho ka qabatay. marka su'aalo badan baa kulli meelaha ka dhalan doona 3 degmo maxay ku dooratay laftigeeda su'aala aduu 3 markii ay qabatay oo xogaa kalsooni gashay. wixiina runtii waxa markaan weligiis la qaban waa wax laga baqo. laakiin mar haddii la qabtay 3
saddexdaas runtii kalsooni iyo dhiirigelin weyn iyo cashar intaba waa ahayd taasaa marka waxay suurto gelisay haddana mar in 30 lagu dayo 6 degmo 2023 sanadkii lasoo dhaafay ha marka mar kastana mahadow waan kasii sheekaysan doonaa mar walba waxaa dhinac socda dooda iyo arrimaha siyaasadda iyo khilaafka iyo buuqa iyo maaragtay ka baqitaanka dimuqraadiyadda in loo gudbo iyo isku haynta sida gameka loo maamulayo iyo sida looga qaybgalayo weligeed dood baa ka jirta marka taasaa waxay sahashay haddana in buuq kala dhaco oo 3 degmo ay ka haraan degmooyinkii marka May 2023 dhacay iyagii baa marka hadda qabsoomay waxaan u maleynayaa meeshii su-aasha aad ka bilowday meesha dambay ahayd marka waa gobolka Nugaal bay u badnaayeen bay ahaayeen saddexda degmaa marka hadda qabsoomay iyaguna bishii July runtiina imise xisbiya marka 500 waxaa ku tartamay mahadow isbedel baa kolley baa dhacay oo wuxuu dhacay 2023 nidaamka xisbiyada iyo shuruucda baa isbedel ku dhacay oo Puntland waxaa ku qornaa markii hore dastuurkeeda 3 xisbi laakiin sanadkii dhaweyd baa taalo kordhiyay xujadii ahayd in 3 xisbi kaliya soo baxaan waa laga bedelay waxaa lagu bedelay in la helo xisbi kasta oo urur kasta oo xubin meel ka helay 3dii hore iyo 30kii ku xigay urur kasta oo xubin hal kursi helay in xisbi loo tixgeliyo marka 9 bay markii hore ahaayeenoo intii ka qayb gashay marka 8 baa xubna helay marka 8dii baa shahaadooyinkii official marka 8dii baa hadda 3dan ku tartamay so ma ahan inay 3da ku wada tartamaan ururada oo dhan oo markii ay soo gabagabowdo doorashada golaha deegaanka la fiiriyo markaas yaa mudan inuu xisbi noqdo marka haddii aan marka taa dul istaagno iyada gaar aan u dul istaagno mahdo meesha xiisaha le waxay tahay sharci ahaan waxa qornaa wuxuu ahaa golaha deegaanka u horeeya iyo mar walbaba golaha deegaanka marka la qabto in xisbiyadu ka soo baxaan oo 10 sano mar in ay ruqsadoodu dhacdo gola deegaan marka lagu tartamo hadbaba 3 u sareysa kuraasta u badan hesha inay xisbiyada rasmiga ah ee state-ka ay noqdaan marka dood baa timi markii 2023 runtiina muddana way jirtay oo waxa jirtay afkaar ah maxaa loo xanibay oo 3 looga dhigay oo si la isu waafajin karaa aragtida ah multi party system baan qaadanay iyo tiro 2 ama 3 ah doodaas culays ka yimi hadda ugu siyaasadda Soomaaliduna qabaa'il laftigeeda iyo qadiyadahaas kama tagto oo tuhun ah waxaa yimi ma furna saaxadii ma furno oo waxa laga yaabaa in qabaa'ilo haddaba la sii garan karo ay meesha buuxiyaan marka ururo badan oo tacab badan markii ay geliyay oo siyaasadda ka qayb galay baa waxay jeclaysteen in la furo iyo dad badan oo runtii aan iyagu wax garad ah oo aan markaa siyaasadaba ku jirin aragtidii noocaas ahayd madaxweyne Deni markii hore fikirka waa loo geeyay muddo ka hor waxay dawladdu tiri wixii dastuurka la xiriira oo ay tahay in dastuurka loo furo waa ugu dhib badnaanaysa laakiin mar dambe markii xoogaa arrintu soo istaagtay waa uu ogolaaday marka dastuurkii Puntland baa la furay meeshan u socdo waa meesha dastuurkii Puntland baa la furay qodobka 46 oo markaa oranayay xisbiyadu waxay ahaan doonaan 3 baa la bedelay waxaana laga dhigay si baa loo farsameeyo si marakanna ka qaybgalka loo ballaariyo oo xaaladda degdeg ah laakiin wixii ka dambeeyay wuxuu u noqdo wax qaab la isla garanay ah baa waxa la yiri haddana cid kastoo kursi heshay xisbi ha noqoto ka bacdi wixii hadda ka dambeeyana meeshii lagaga soo baxayay local government elections ay ka soo bixi lahaayeen ha ka soo baxaan threshold intaas oo maaragtay kuraas ah iyo codada ciddii hesha baa xisbiyo noqonaya laakiin macnaheedu maaha ciddaan waxba helin inuu dhimanayo xisbigaasina waa jiraya oo waxa laga yaabaa dee xuquuqaad iyo wax inuu thresholdgaas marka maxaa loo fiirinaa kuraasta oo baarlamaanka stateka mise maya kuraasta hadda soo lama oran 3 xisbiyo kuraasta ugu badan ka hesha municipality electionka kaas marka wuxuu noqonayaa ciddii percentage-ka hesha oo intaas ku guuleysata threshold-ga inay maaragtay loo aqoonsanayo xisbi marka laakiin weli doodo badan ba waxay ka jiraan iyaantii hore
cimriga xisbigu 10 sano ahaa saddex xisbi ma 10 sano cimrigu ah hadda cimrigii waa 5 oo isbedelka dambe oo la sameeyay 5 sano iyo waxa lagu soo koobay in la badiyo ha oo 8 la gaarsiiyo marka laakiin waa meelaha hadda maadaama dawladdii arrintaas waday barnaamijkana waday ay dib u soo noqotay for the first time oo taariikhda Puntland haddeer wax la islama diidana oo mucaarad iyo mu'ayid iyo indheer garad iyo kulli waxa la isku waafaqsan yahay afgaradku waxaa saddexdii degmo hadda dhimanaana inay qabsoomaan wax allaale iyo wixii dood iyo su'aal sharci iyo mid siyaasadeed tabasho siyaasadeed ay ka jirto in dib loogu noqdo la dul istaago marka haddeer su'aalo badan oo u baahan in dib loo fiiriyaa waa jiraan mana dhammayn karno haddaaman hadda dabcan inaan aadno laakiin waxa la isku afgartay waqti fiican maadaama loo haysto in arrintaas marka 8 xisbi ee ku tartantay doorashada 3 degmo ee Nugaal ma 8 urur ahaan ay ugu tartameen ma 8 xisbi oo official ah xisbi ugu tartameen okay oo waxa 2023 May doorashadii la galay oo 30 degmo ahayd iyo saddexdii ku horeeyay 33 cid allaale xisbi urur kasta oo xubin kursi helay ka helay kursi ma cod helay ma waa kursi helay baa sharcigii dastuurka la bedelay July 2023 baa wuxuu siinayaa in loo aqoonsado xisbi marka halkaas laba xisbi oo mucaarada oo waaga diiday baa jira oo dood sharci qabay oo ah isbedelka dastuurka ee la sameeyay July inuu natiijada soo baxday May wax ka bedelo raali kama nin dood sharci maana ka qabnaa bay dhaheen hase yeeshee markii Puntland ay ku noqotay indirect electionkii iyo sideedii hore ay ku noqotay ee January doorashada gashay doorashadana mucaarad iyo mu'ayidba lala tartamay madaxweyne Dani oo markaa isaga dib loo soo doortay waxaa dhacday pressurekii hoos buu u degay temperaturkii okay labadii xisbiga markaa diidanaa inay certificationka maaragtay xisbi loo aqoonsado iyagiina hadda waa ogolaadeen certificate-kii waa qaateen mid waan hubaa waa qaatay doorashadii weydna waa galeen xisbiya ku galeen marka 8 xisbi ee tartanka 3 degmo gashay hadda ugu dambeeyay sidee u kala heleen kuraastii golaha deegaanka horta waxay u kala heleen saddexda degmo waxay ahaayeen Garowe iyo Dangorayo iyo Godob jiraan marka meesha caasimadda ah oo kale oo hadda macnihii magaalada weyn ah caasimadiina ah xisbiyadu horta kulligood meel uu xisbiga xukuumadda talada haysaa uu yani ku guuleystay kala bariya in ka badan ma jirto meel kastaba waxay ahayd neck to neck way runtii way isku dhawaayeen marka meesha la yiraahdo Dangorayo oo kale waxa uu ka helay xisbigu ka waxay ka heshay 9 xisbiga ku xiga wuxuu helay 6 ka waa xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne xisbigu waa xisbiga madaxweyne Garowe oo kale ka waxay ka heshay 12 xisbiga ku xigaana waxa uu ka helay 7 iyo 6 meelahaas buu numberka ahaa wixii kalena way ka sii hooseeyeen meesha la yiraahdo Godob jiraan sidaas oo kale iyadana halba is dheeraayeen xisbiga mar walba xisbiga xukuumadda baa marka 8 xisbi kulligood waa heleen kuraas waa wada heleen kulligood waa heleen okay haba u yaraa haba u kala badnaa kulligood waa heleen kulligood waa heleen laakiin marka la fiiriyo tirada la isku dardaro xisbiga ka ayaa ugu tiro badnaa mar walbaba ma kasta mar walbaba isaga ugu tiro badnaa okay markaa fiirisid doorashadan 3 degmo dibay ka dhacday oo markii hore khalaasa dhacay oo la xiriiray doorashadii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha marka sidee loo maareeyay maxaa isbedelay oo hadda fududeeyay in doorashada si nabada oo aan buuq lahayn ay ku dhacdo waa su'aal muhiim ah
markii horta waxaan aan dib u noqdee barnaamijkan dimuqraadiyadda iyo in Soomaalidu siyaabaha ay comfortable-ka ku tahay ama ay la qabsatay waxa weeye qaabkii ay garanayeen oo in maanta odayaashu wax soo xulaan muddaba waa aniga hadda ku bilaabay 2011 bay Puntland isku dayday talaabadan inay qaado intaas marba waxaa hortaagnaa inta awoodda rabta in la joogo qaabkii la isla yaqaanay baa waxay ka badnayd inta rabta in la gudbo inta rabta in la gudbo laftigeedu inta badan waxaa garwadeen ka ahaa dowlad markaa kursiga fadhida oo in badan oo kamid ah shuruucda iyo siyaasadda iyo maamulka electionkana uga saameyn badan dadka inta kale iyo xisbiyada la tartamay marka tuhun ku salaysan is-aamin la'aan iyo ku qanaaco dadku uu ku qabo ama ku kalsoon yahay ama ay u qabaan inay ugu badiso qaabkii hore baa horta mar walba tartamayay waxyaabaha anagu aan markaa daraasadaha aan ku ogaanaynay oo mar walba aan darsaynay waxaa ka mid ahayd mar kasta oo barnaamijkii oo qabyo ah barnaamijkii dimuqraadiyadda oo Puntland ay ugu gudbisay oo qabyo ah ama meel dhexe maraya uu dhammaado cimriga xukuumadda markaa fadhiday waxaa soo degdega in uu khilaaf yimaado oo lagu kala aragti duwanaado barnaamijkan aad xukuumadda ay leedahay waan wadaynaa cimri dherer baa ka raadinaysa iyo kama raadinaye barnaamijku waa iga dha marka doodii hadda dhawaan dhacdayna middaa kama duwanayn annagu marka talooyinka aan mar walba ku talin jirna waxaa ka mid ah xukuumadda imaanaysa horay ha u bilowdo Puntland dowladda waxaa la doortaa 5 sano marka sanadka ugu horreysaba hadday bilowdo waxaan u arkaynay oo qabnay iyadoo casharadii laga bartay kuwii hore aan ku dabaqayn in meel fiican la gaarsiin karo madaxweyne Siciid Dani marka sanadku yimiba waa bilaabay oo bilowgu waxa weeye processku on hold waaye wuxuu meel buu taagan yahay inuu markaa resume gareeyo oo officially magacaabo guddiga doorashada the minute guddiga doorashada la magacaabo shaqadu markaa macnaheedu waxa weeye iyagaa wadaya marka isagu 2019 uu magacaabay iyaguna shaqo dardar badan bay markiiba qabteen isdiiwaangelinta ururadu markiiba waa ku xigtay xogaa covidkii baa maaragtay xogaa dib u dhac ku sameeyey iyo doorashadii federaalka iyo waxaas oo baa attentionkii maaragtay xogaa shaqo fiican baa marka la qabtay meesha aan rabo inaan ama hada hor dulistaa waxay tahay 3 degmo maxaa loo doortay 3 degmo waa la baqayay marka arrinkan waa arrin aan isleeyahay Soomaalida iyo maamulada kale laftigoodu inay wax ka dheehdaan waa muhiim maadaama 10 sano oo daal ah iyo isku day ah mar walbana laga hoos marayay meeshii la rabay ay Puntland soo samaysay waxaa la yidhi maanta yaan ukumaha dhan hal mar miiska la wada saarin aan 3 ku tijaabino marka iyadoo aysan jirin xaalad saxmad siyaasadeed iyo buuq iyo ishaysasho iyo istuhun baa 3 degmo la qorsheeyay si fiican baa loo qorsheeyay waa laga baaraan degay waa kuwii 2023 ahay marka degmo xeeb ah degmo miyi xigeen ah iyo xoolo dhaqato ah iyo degmo maaragtay caasimad ah si kale haddii loo dhahana 3 gobol ku kala yaala si kale haddii loo dhahana mid ah degmo kasta oo gobol u ah caasimad waa degmo kasta oo maaragtay dowladdii Maxamed Siyaad Barre jirtayna waa B degmo kasta oo markaa ka bacdi la sameeyana waa C marka 3 degmada ufayn la yiraahdo 2 farshin baa jira oo farshin way magacawmaydo DC looma soo magacaabin markii madaxweyne Siyaad Barre uu talada hayay wuu jira aduu anyway degmadaas oo C oo ah Puntland iyo Ayl oo B oo ah iyo Qardho oo A oo ah baa lagu tijaabiyay 3 gobolna kala ah kan dambe 3 dambe maxaa loo dibdhigay 3 dambe marka waxaa loo dibdhigay oo mushkiladda keentay waxay ahayd isqabsiga iyo tuhunka 2023 u badnaa madaxweyne Siciid mucaaradkiisii
ay lahaayeen jooji intii aad qaban ka dhig waad qabatay wixii kale ciddii kaa dambaysa hadda adigu soo noqotid marka qabo doorashadii hoggaanka ee baarlamaanka iyo madaxtooyada qabo waqtigeedii ku qabo iyo isaga oo lahaa barnaamijkan meel buu soo gaaray marka waynu wadaynaa waan dhammaystiraynaa dad badan oo markaa shacabka ah oo runtii intay galeen arkeen doorashadii saddexda degmo rabayna in horey loo socdin waa dad badan oo runtii ku caajisay qaabka wax loo soo xulo oo ama ka federaalka hata ama ka puntland hata ku caajisay oo ama ka niyad jabayna waa jiraan in badan oo siyaasad ahaan u rabtay oo ileen ma ogtahay meeshii rag baa ku legdamaye way jirtay adu calaa ayati xaal buuq u badnaa gobolka Nugaal mucaaradad u badnayd ayaa suurto gelin waayey in la qabto waxaana laga baqay qalalaase iyo nabadgelyo xumo walow ay hadda dhacdo mid iyo labo ay dhaceen haddana waxaa laga baqay haddii la khasbo in ay wax sii xumaadaan marka waxaaba sahlanayd in 30 diyaar ah oo aan dhib lagu ogeyn baa la hayay marka saddexdan baa dib loo dhigay waxaan isleeyahay tala fiican bay ahayd oo guddiga doorashada markaa joogay uu qaatay hadda maxaa suurto geliyay marka hadda sidan haddaa yidhi temperaturkii waa degay hadda hoos buu u dhacay hadda doorashadii waa la wada galay oo siciid mucaaradka waxay la galeen doorasho ay kala qayb galeen mar haddaad geemka ka qayb geshid hadhowto gunuc ka dambayn kartaa ma jirto marka waa looga guulaystay inay qanceen iyo inaysan qancin waa su-aal kale oo dee maaragtay aan u baahnayn in dadka aan waxba ka qusayn marka iyaguna nafis bay siiyeen dadkiina mar haddii wixii la isku hayay uu dhammaaday bulshadii gobollada degmooyinkaas deganayn awalba way rabeen electionka way aqbaleen waa soo dhaweeyey marka dee waxaana loo arkayay mar haddii buuqi siyaasadeed meesha ka baxay caasimadii iyo intaasoo degmoo kale inaysan lahayn golol la doorto intii kalena leeyihiin culays bayba ku ahayd iyo pressure dadka deegaankaa degan marka sidaas baa fududaysay kuwii hore kuwii dhexe iyo tii u dambeysana wax dhib ah runtii oo maalintaa doorashadoo hadda maalin aada u dheer ah culaysna badan ah wax dhiba ma dhicin kaalinta hay-adaha bulshada rayidka oo BDRC ay ka mid tahay maxay ahayd marka la fiiriyo doorashooyinkaas oo soo bilowday muddada fog laakiin gaar ahaan 2021 ilaa iyo 2024 doorashooyinkaas oo dhacayay oo degmooyinka laga qabanayay kaalinta bulshada rayidka Puntland maxay ahayd aad baad u mahadsantahay su-aashan waa su-aal muhiim ah horta intaan tan ka jawaabin waxaan rabaa inaan kuu sheego muddadaa dheer oo haddeer annaga aan ka shaqaynaynay ama aan ku dhex jirnay ama state buildingka guud ahaan ama transitionkan hadda ah qabiilka in xagga loo gudbo waxyaabaha hadda anigu aan si fiican u ictiqaadsanahay ama aan aaminsanahay waxaa ka mid ah electionka ama demokrasiya ama nidaam dowladoodoo furfuran haddii aynu rabno waxaa u ah shardi in la helo hay-ado maxalli ah iyo saxaafad ilaa iyo xad haysta saaxad ay ku ciyaari karaan waan culays siyaasi ah usan saarnayn baqdin amnina jirin laakiin kuwa intaas dhan waxaa kasii muhiimsan inay jiraan oo existencygooda iyo structureka iyo capacityga uu jiro meel kasta oo ay ka maqan yihiin awoodoodu ama ay liidato amaba aysan jirin waxaa laga hirgeliyaa wuxuu noqonayaa wax inta badan cidda markaa meesha joogta ay samaysato amaba wax aan wax ilaashado oo leh ama dhuudhuujiya usan lahayn marka meeshaan usoo socdo waxa weeye bulshada rayidka ahi iyo saxaafaddu door muhiim ah oo mug leh oo shariif ah bay ka qaateen waxay lahaayeen lahaanshaha fakerka ku celcelinta dowladda markasta oo ay dhinac uga baxdo waddada saxda ah waxaan xasuustaa dowlad kasta oo isbedeshay oo imaanaysay xilliga campaignka intaan isxilqaamayaan annagoo ah oo bulshada rayidka oo institutionna magacala ka socda iyo dad bulshada rayidka ah oo qasab ahayn in institution hebel ka socdaan waan u tegayn waxaan ka saxiixaynay January marka lagu doorto 2 bilood oo ku xiga barnaamijka dimuqraadiyadda inaad bilaabaysid horta rabitaan noocaas oo ilaasha rabitaan oo khasbi ugu jiray marka labaad markiiba ay noqotay in la isku dayo oo markasta dowlad saddex dowladood u dambeeyay ilaa 4 hadda tan joogta
ay lugaha geliyeen maaragtay isku daygaas oo aanba qaadeen waxyaabaha muhiimka ah oo bulshada rayidka ay ku aadaneed waxaa ka mid ahayd maamulidda saaxadda dooda oo in dood iyo nolol iyo debate uu jiro oo musharaxiinta iyo siyaasiyiinta iyo maya hadalhaynta okay hadalhaynta qadiyadda laftigeeda maxay u maqan tahay maxay u liidataa maxaa la isugu hayaa xaggee wax ka jira micnihii cillad bixinta lahaanshaha ilaalinta u sahaminta farsamo yaqaanka dhexdhexaadinta micnihii door badan oo ah oo aysan hay-adaha dowladdu shaqo aysan qabanayn ama aan markaas iyagu u habboonayn oo aysan qaban karin bay ku aadanayeen marka dad is abaabulay dad maaragtay prominent ah oo muhiim ah oo bulshada dhexdeeda laga garanayo dadaan iyo markaa interest gaara aan lahayn dadaan qolo gaara u xaglinayn horta meelaha ay qaadayeen oo runtii ku aadanayeen baa midda kale waxa weeye dhanka ah dee cilmi baarista iyo in wixii la ogaado hadba haddeer intii inaga hadda muddada hadda aan wada shaqeyno waad arkayso tallaabo walbaba soo socota waxaanu gelinaynay maskax iyo feker iyo dood iyo cilmi baaris iyo okay wadada halkaasaan joognaa wadada ku xigta maxaa naga horeeya imise wado yaryar baa ka bayri karaa teebaa noogu sahlan meeshaan u socon inayna geyso micnihii odoros noocaasa baan ku dhex wadnay arrinta kale oo muhiimka marna aan la ilaawi karin oo bulshada rayidka iyo saxaafadooda iyo kulli la isku qaada ay wadeen waxay ahayd arrinta wacyigelinta waxbarista dadka aadista meelo fog oo aan micnihii codka idaacaddu gaarin dowladi joogin teleefanadu dhib ku yihiin internet iyo mobile aan laga isticmaalin micnihii inay bulshada rayidkaa safarto fariimihii qaado iyagoo qoraala ay samayso iyagoo maqal iyo muuqaala geyso idaacado mobile ah iyo telefishinno guurguuraya laga shido dadkii lala kulmo loo sharaxo warqadihii intii la qaato saasaa loo codeeya ma fahmaysaa billboards iyo maaragtay iyo tilmaamo waaweyn la dhigo shaqadaasna shaqo hay-ad caalami ah iyo hay-ad dowladeed midna ay ku aadanayeen maaha marka doorkaasna door runtii aad iyo aad shariif u ah oo ay qaadeen baa jira waxaan rabaa inaan kuu sheego information siyaada aan ku siiyo dadka wadan ahaan dadka is-register gareeyey oo isu register gareeyey inay codeeyaan puntland waxay ahaayeen 400,000 oo qof all together yani wax yar baa dheera dadkaas waxaa codeeyey 60 iyo adigu 700 meelaha 67,000% 67% okay waa dad 200,000 ka badan ilaa 30 iyo xoogaana ma aysan codeyn waxaa kaloo muhiim ah codadka xumaaday baan rabaa inaan tusaale yarkaasiyo markay ahayd 3 degmo 2021 October 3 degmaa la galay sodomeeyo bay ku dhawaayeen codadka la bixiyey sodomeeyo kun 12% baa xumaaday marka 30 la galay 30 degmo marka la galay 5% baa xumaaday marka taas waxaa qayb ka qaatay wacyigii isbedelka aqoonta dadka tusaale ahaan hadda annaga waxaan ogaanay 3 markii la galay ciladaan raadinay waxyaabaha ka mid waxa weeye magacyada ururadu way isu ekaayeen intooda badan Soomaalidu ma hado maqan office kelmadda cadaaladda iyo runta iyo waxyaabaha Soomaalida marka magacyadooda way u badnaayeen loogooyinkuna way isu ekaayeen marka qof baadiyo jooga waxyaabaha cajiibka ah ma hado inaa dadkeena u malaynayo magaalada jooga ay ku baraarugsan waxa kamid ah Soomaalida akhriskii qoraal la'aantu aad u sareeyaa marka qof aan wixii akhrin karin calaamadahan isaga dhexyaacaya marka annagu markaan daraasad sameeyay waxaan ku talinay in calaamada yaqaanaan hadaa ka hadlaysid xisbiga mahad la dhaho calaamadiisu waa geel waa fahmi karaan mahad marka waa yaqaanaan iyo xisbiga iyo yaa uga sharaxan iyo yaa hogaamiye waa yaqaanaan calaamadiisa laakiin waxay ku garan karaan marka dhahdo waa geel ama waa faras ama waa haruub ama maaragtay marka dhahdo waa waxay garan karaan waxyaabaan ku talinay ay kamid ahayd oo maaragtay yareeyay inay codka marka waxyaabihii runtii ujeedooyinkii laga lahaana wayba ahayd 3 degmo in horta la pilot gareeyo
maxaa meeshaan nooga horeeya biyahan in la tijaabiyo waxyaabahan ka baran marka waxaasaa ka mid ah markii dambe wuu garanayaa qof geel buu kusoo toosaya isagoo raba inuu codeeyo isagoo faras raba inuu codeeyo taas waay markay 30 degmo ahayd percentage-ka xumaaday uu noqday wax ka yar 5%. markay ahayd 3 degmana uu ahaa more than 12%. doorashadii dowladaha hoose waa dhammaadeen Puntland. maxaa xiga marka dimuqraadiyiinta Puntland marxaladda xigta maxay noqonaysaa? sida micnihii sina waa sida system processku isugu xiran yahay sina waa sida xogogaalnimada aan mudnaanta u aragno sina waa si aynan ogeyn laakiin madaxda iyo hoggaanka markaa meesha jooga ku xiran marka sida processku isugu xiran yahay waxaa weeye local councilkii haddii la galay baarlamaankii baa ku xigi doonaa waxaan rabaa inaan kuu sheego hoosta ka xariiqo waxaan muddo badan isticmaalaynay hay-ad doorasho ku meel gaara oo la yidhahdo TPEC 1 TPEC 2 TPEC 3 hadda markii ugu horreysay Puntland waxay leedahay hay-addii la yidhaahdo PEC oo ah Puntland Electoral Commissionkii oo mandate-koodana uu yahay muddo badan 6 sano inuu yahay maflaya shaqadoodu waxa weeye marka iyagu dee doorashada inay maamulaan marka waxay isu diyaarin karaan marka dee qabyo tiridda iyo waxyaabaha gudahooda laga soo tago waxay isu diyaarin karaan waa doorashada baarlamaanka iyo tii madaxweynaha waxaa ka soo horeeya oo mahadow ay tahay inaad ogaatid 2021 waxaa la galay 3 degmo 2023 waxaa la galay 30 degmo labadaasiba cimrigoodu maanta wuu ka yaryahay cimriga madaxweynaha madaxtooyada iyo cimriga baarlamaanka marka waxaa laga yaabaa in wax la iswaafajiyo waa laga yaabaa oo meel waxay haystaan 5 sano Soomaa mandateku 5 sano haystaan marka laakiin madaxweynaha ka dambeeyo baarlamaanka labadaba marka qorshuhu siduu sequence isugu xigaa in municipality-ga la qabto marka baarlamaanka la qabto kabacdi madaxtooyada la qabto hadda waa suurtagal inuu soo hormaro again municipality-ga laakiin in la hal waqti laga wada dhigana waa suurtagal waa doodaha hadda furan horta nidaamku sida nidaam ahaan ay tahay in isugu xigo waa sidaa mid kale aan markuu sheegayaayo waayo aragnimada iyo wacyiga wuxuu noo sheegay intaa ognahay horta marathon dheer bay Puntland soo gashay oo 15 sano ah oo arrinkan iyo farsamadiisa iyo ka shaqayntiisa uu ahaa scope-ka inta Puntland ay aragto waxa uu ku koobnaa municipality elections marka waxa ka horeeya waa shuruucdeedii iyo xisbiyadii iyo ururadii iyo qabashadii maalinta uu dhammaaday waxa ku xiga dooda Puntland weli ma furin waxa ku xiga waa la isla garanayaa laakiin wuxuu u baahan yahay shuruuc wuxuu u baahan yahay meelaha qaybtood aragti siyaasadeed iyo isfaham siyaasadeed in laga yeesho weli horta halkaa looma kicin marba sanadkii dhammaaday waxaa la sameeyey draft oo parliamentary maaragtay election law ah isagana waxaaba soo celiyeyba dad shacab oo mudaharaaday oo baarlamaanka intay xirteen iyagoo ka baqaya haddii la ansixiyo in qalaaso dhici doono baa soo celiyey horta halka tallaabay halka fikir oo ku aadan beyond labada municipality elections wixii ka shisheeya fikir horta kaasa ugu dhawaa horta hadda marka waxay tahay intaaman la aadin stepka ah electionka ku xiga in la aado su'aalo badan oo weli ka taagan 2023 doodii taagneyd dooda taaganna waxaa ugu muhiimsan dooda la xiriira sharciga iyo nidaamyada doorashada madaxweynaha cidi dooranayso anagu nidaamkeenu parliamentary buu ahaa madaxweynaha oo ay dooranayaan baarlamaanku isbedel baa waxaa lagu sameeyey 2000 July 2023 isbedel baa lagu sameeyey waxaa loo guuray madaxweynuhu inuu director noqdo dood sharci baa ka jirta oo in isbedelka la sameeyo golaha xukuumaddu ma soo codsan baarlamaanku awood waa u leeyahay inuu table gareeyo oo meel uu ku table gareeyo la og yahay oo shacabka iyo miidiyaha la og yahayna ma jirin qodobka iyo qodobo badan oo kamid ah oo ah gobollo magacyadooda la bedelay qaab garsoorka wax laga bedelay waxyaabahaas oo dhan baa dastuurka bay baarlamaanka markaa joogay taabteen
waxaa jirta dood sharci iyo mid siyaasadeed iyo xataa mid dad maaragtay aqoon-yahan waxaan la xijeclo kale ay qabaan oo ah inagoo aan pressure iyo culaysina haysan oo salmugi u fadhina aan fiirino isbeddelka la sameeyey maxaa ka muhiim ah maxaan muhiim ahayn maxaan tahay in dib loo celiyo tusaale ahaan ra'yi badan baa dad badan baa waxay qabaan ra'yiga isku waafaqsan in la badiyo tirada xisbiyada oo 8 laga sii badiyo maya markii hore in 3 laga kaxeeyo laakiin dadku iskuma waafaqsana inta ugu yar baana qabtaa saan isleeyahay inkastoo aan daraasad samayn baa qabtaa in presidential la aado oo shacabka ay doortaan madaxweynaha oo dadku waxay ka baqayaan madaxweyne shacabku doortay oo maaragtay hadduu rabo xarigla noqday oo wuxuu rabo maaragtay waa dooda halkaanba ka taagan haddeer oo ah baarlamaanku majaru ku haya marka horta yaysan dooda halkaa igula fogaanay waxaa muhiim ah maaradoon dheer maadaama aan soo galnay maaradoonka dhowr iyo 10 sano aan ku jirnay in dib loo eego waxaa jira shuruucda doorashada laftigooda waxyaabo qabiyo ah iyo waxyaabo iskhilaafsan tusaale ahaan sharciga doorashada oo dowladaha hoose waxa uu qabaa qofku meesha uu ka codeynayo inuu helo choice meesha ugu dhow tusaale ahaan voter registration law wuxuu qabaa specific meesha uu maalinta is register gareeyay uu sheegtay inuu ka codeeyo micni waa laba sharci oo labadaba baarlamaanku ansixiyey oo laakiin u baahan waxaa kaloo jira replacementiga hadda mahad baa la doortay mahad boosaaso u soo baxay mahad ama tii allah u timi ama waa danaystay ama waa iscasilay replacementigiisu mahad meeshuu ka imanayana dood baa ka taagan oo clarity fiican ma wuxuu ka imaanayaa liiska meeshuu kaga jiray ma wuxuu ka imaanayaa qofkii ku xigay tira ahaan kii uu codeynaya anaga laftigeenu labadii moodalba hadda waa isticmaalnay marka hore model close list ah baa isticmaalnay saddexdii degmo laakiin waay aragnimadii laga helay xisbiyadii waa soo istaageen marka waxay dhaheen kuma geli karno oo shaqa ma qabsoomayso markaad liis geysid liis markuu xisbigu geeyo shaqo badan qofkii ma qabanayo the minute uu ogaado in liiskii la gudbiyey iyo meeshuu kaga jiro shaqo badan qaban mayo teeda kale qabaa'iladu reer walba wuxuu ku leeyahay degmadan aan joogo annagaa ah majority liiska meeshaad ka gelisid wuxuu reerkaa u sheegayaa meeshaad ictiqaadsan tahay inuu degmadaa ka joogo dabadeedna saboodkii iyo musharaxii wixii oo dhan bay kaala tegeen markii dambe waxaa la isticmaalay PR closed list markii dambe waa la isku daray modified hybrid oo Puntland model ah oo aan ahayn maaragtay laftigiisa dood baa runtii ka jirta wuu noo shaqeeyey laakiin dood baa ka jirta tusaale ahaan dumarkii soo bixi lahaa dumarkii dadkii kaloo maaragtay tabarta yaraa soomaalidii kaloo meesha deganayd waxaa kaloo dood ka jirtaa nidaamkii hore kala horreyn baa jirtay haddii anigu aan ku qoranahay qofka koowaad suurtagal maaha qofka soddonaad inuu iga fursad fiicnaado nidaamka marka close listiga ah oo baarlamaanku ansixiyey wuxuu haystaa sidaas weeye kan kale oo turjumaadda iyo modelka la sameeyey waa isafgarad laakiin muxuu ahaa ciyaartii isbeddel buu ku sameeyey isbeddelku marka positivity badan buu leeyahay oo annaga noo shaqeeyey laakiin doodo criticalna oo siyaasadeed iyo kuwo sharcina wuu leeyahay adigu aan isku soo duubo in la dul istaago oo wixii soo qabsoomay iyo wixii khaldamay marka qanaaca si loo qeexo meesha loo socdo qanaaca marka hadda waxaa jirta oo hadda waxa ugu weyn aan kuu sheegi karo xukuumaddii xisbiyadii ka qayb galay kuwii mucaaradka ahaa oo markii dambe diidanaaba inayba la sii wadaan geemka dowladda shacabkii qanaaca waxaa ka dhex jirta aynu wax iswarsanno marka saddexdan degmo ma qabanay let's take time aynu marka dib u fiirino isla rogrogno meel walbaba aynu maaragtay tooshka ku ifino wajahad markaa aynu isku waafaqsannahay hayno aado mahadow su-aalaha waaweyn oo hadda Puntland ay tahay inay ka jawaabto waxaa ka mid ah baarlamaanka waa ka dhib badan yahay golaha deegaanku waa degmadii modelka aragti dooro dadkeedaa ku tartamaya politics weynna kuma xirna laakiin baarlamaanku politicsna waa ku xiran yahay
halbeeg sal ah oo ku fariistana uu u baahan yahay tusaale ahaan annaga dastuurkeena waxaa ku qoran qaybsiga baarlamaanku inuu beelo yahay may inuu gobollo yahay sida uu dastuurka u qoran yahay waa gobollo beeluhu iyaga hadhow sii qaybsado isafgarad aan laakiin qornayn weeye hadda marka ma wuxuu noqonayaa gobolladii oo gobolka barina waxaa la dhigayaa 21 xubnood gobolka nugaalna waxaa la dhigayaa 9 xubnood ya sidaas hadduu yahay waa halbeeg la gartay oo laysku waafaqo haddii dood baa jirta degmaha la geeyo degma marka haddii la geeyo waxaa loo baahanayaa kursigu intee gooyaa marka maxaa kursi degmadaasi inay goosato kursi ama 2 ama 3 ama aysan waxba helin muxuu yahay inta qof uu goosan karo kursiga marka waxaa imaanaysa baahi ah in la qabto tirakoob si loo ogaado markaa kursigu intee gooyaa dabadeedna su-aasha haddana waxay ku imaanaysaa nambarkii baarlamaanka 66 ahaa oo dastuurka iyagu hadda uu qorayo waxaa wax laga bedeli karaa oo keliya haddii tirakoob la qabto baa ama la kordhin karaa ama la yareyn karaa inta ka horeysa 66 buu ahaan marka hadday Puntland rabto inay 66 haysato su-aasha kursi iyo dad in la isu fiiriyo ah meeshii bay su-aasha ku soo noqonaysaa haddii ay degmo waa in model electoral model marka waa inay iyadu isleesho mase Puntland oo dhan baa waxa laga dhigayaa single constituent oo maaragtay wixii uu ka helo kaasaana sahlan marka loo fiiriyo taasaana baana ka sahlan haddii la rabo sida 66 in la maintain gareeyo waliba dimension kale oo cusub oo aad iyo aad isna xiisihiisa iyo culayskiisa u leh baa wuxuu yahay meesha gobollada la yiraahdo SSC hadda Khartoum State kama aysan qaybgelin doorashadii Puntland xataa diiwaangelintu kama dhicin hal degmo oo ka mid ah gobolka Sool iyo gobolka Cayn kama dhicin registration xataa kama dhicin marka macnaheedu waxa weeye lugtii koowaad ee processka ee ahayd registrationka electionka kama ay qaybgelin laakiin markii hadda ay Puntland u noqotay qaabkeedii hore ee ahayd traditionalka ee wax la soo xuleeyay way ka qayb galeen baarlamaankii waa ka qayb galeen dawladdii dhalatayna wixii ay ku lahaayeen 25 sano ay heli jireen waa ku leeyihiin waa fadhiyaan dhanka kale Puntland madaxdeeda iyo dhaqanka iyo shacabkeeda iyo tan siyaasaduba waxay isku waafaqsantahay SSC inay jirto marka iyadana waxay u baahan tahay in marka haddii la yiraahdo qof iyo cod wuxuu toos su-aasha u dul keenayaa SSC micnihii si kasta oo kale SSC way gaban micnihii Puntland SSC lahaa ka mid ahaanshaheeda way ka wareegi kartaa laakiin markay xagga albaabkii ratay ka bixi kartaa laakiin haddii la yiraahdo direct election haddii la yiraahdo su-aasha toos bay u dilmaanaysaa marka su-aalahaas oo dhan baa maaragtay midda aan ku gabagabaynay waxay tahay dawladda cusub waa su-aashayda ahayd dawladda hogaankii la jirtaa dawladda cusub haddee dawladda hadda iyadaaba ku magacaabanba inay qof iyo cod Puntland ka hirgelisay haddana madaxweynihii waaba soo noqday wax yar isagoo joogana waa ambaqaaday oo ambaqaadka annaga wuxuu nooga dhigan yahay si official ah in loogu noqday nidaamkii qof iyo cod oo December 6 sanadkii hore la joojiyay marka ku noqoshada iyo qabashada saddexdan degmo waxay la macno tahay Puntland inay toos ugu noqotay in saddexdan degmo ay qabsoonto oo lagu kala baxayna waxay la macno tahay chapter in la xiray oo chapter kale uu furmaayo uu Puntland u bilowday marka wax kale oo dhaca oo naga awood badan waa meesheeda dawladda oo si intentional ah ugu talagashay ama interestigeeda aan ka arag oo ka noqota laakiin ku eedaysan waa ku istaagi kara laakiin si kale uu ku istaagi karo ma jiro electionka noocee ku xiga keesoo hormaraya maxaa la qaadanaya waxaasoo dhan waa wax dee lagu dhex ciyaarayo laakiin waxaan dhihi karaa Puntland officially hadda bas stopkii ugu dambeeyey ee habqaybsiga reerku ee in reerka nidaamka wax lagu soo qaybsado oo wax lagu soo dhisto January 2024 baa u dambeyn doonta wixii ka dambeeya Puntland waxay isugu lugu duwanaysaa qof iyo cod
qodobka ugu dambeeya aan rabay inaan mahad kuu sheego waxa weeye maxaa tii January 2024 bay ahayd the last bus stop oo ahayd in indirect election wax lagu soo xulo oo indirect election okay ha indirect election inay Puntland doorasho ku gasho u dambeysay markii u dambeysay waa January 2024 okay midna ku sheegay mahadow oo ay tahay inaynu mar walba maanka ku hayno Soomaalidu ama federaal ha joogto ama state kale ha joogtee barnaamijkani degdeg iyo sanado iyo bilo kooban si kasto aad u jeceshahay waxa diyaar u yihiin mar walba wuxuu u baahan yahay dhowr bus stop iyo habeen dhaxdimo maaragtay marka lug baad qaadaysaa culays baa kugu imanaya culayskaas markuu kugu yimaado inaad intaa kitaabkan isku laabto oo aad laakiin calaamad dhex gashato aad tii dadku comfortable-ka ku ahaa u dabciso adoo dee markaa u dhibrinaya nabadda guud iyo wada jirka ka bacdina markii xaaladda degdega laga baxo haddana lagu soo noqdo marka la dhugto page-kii la joogay haddana laba page oo kale lagu daro micnihii barnaamijkani ma aha straight forward duruufihana marka uu bilow yahay markuu bilowga yahay marka waa meeshaan ku leeyahay Puntland dhowr bus stop bay timi kii u dambeeyay hadda markaan December 2024 joognay straight forward 2023 aan joognay straight forward ma ahayn inaan baarlamaan qabanno madaxweynena qof iyo cod ku qabanno macnaheedu maaha technically inaan la qaban karin macnaheedu maaha dadku inuusan diyaar ahayn laakiin political atmosphere-ka markaa jiray baan ogolaanay waxaan ka wadaa laakiin hadda markii say rabeen lagu qabtay ya mucaaradkii hadda waa suurtagal macnaheedu waxa weeye marka waan guurnay oo waxaan u guurnay baarlamaanka iyo madaxtooyada saa lagu ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Cabdinaasir casharada laga baran karo geedi socodkaas xanuunka badan oo doorashooyinkii dowladaha hoose Puntland dee hadda xamar iyo dowladda federaalka waxay qorsheynaysaa doorasho qof iyo coda in waddanka laga qabto muddo 2 sano ka yar gudahood dowlad goboleedyadii kale waxbaa kaba bilowday guddi doorasho galmudug laga asaasay sidaa sheegtay dee hadda Puntland weli geedi socodkan hal marxalad unbay soo xirtay baabkeeda marxaladihii kale oo furmaayo oo maaragtay tii baarlamaanka iyo tii madaxtooyada iyo sidii laga yeeli lahaa intaas yaroo ay Puntland ku samaysay doorashooyinka dowladaha hoose oo adigana qayb ka ahayd 2011 ilaa iyo 2024 maxaa isleedahay casharada ugu muhiimsan oo haddii ay noqoto heer federaal iyo dowlad goboleedyada kale ay ka baran karaan habraacaas iyo geedi socodkaas waa mahadsan tahay kolley dee wax badanna waan ka qornay oo dad badan baa wax ka qoray oo wixii kolley way yaalaan laakiin marka aynu luuqadda ugu sahlan iyo maaragtay sida wacyigeena iyo dadkan u fahmi karaan aan u dhigno waxyaaba aan ka baran karna waxaa weeye geedigani geedi dheer inuu yahay waqtina u baahan yahay waxaan ku qanacsanahay aniga oo waaye aragnimada ka duulaya inuusan ahayn haddii uunamana jeedo cid kastoo hindiso wadda inaan niyad jabiyo laakiin waxaan ku qanacsanahay inuusan ahayn qorshe 12 bilood loo dhigan karo 24 bilood loo dhigan karo muxuu ahaa 36 bilood loo dhigan karo oo min waxaan oo dhan baan hal mar dhammaynaya waxaana taa ugu cududaarayaa Puntland hadda ku jirta Soomaalida meelaha ugu deganayd siyaasiyan iyo amni ahaanba rabtayna 1998 ku qoratay dastuurkeeda 3 sano ka bacdi tirakoob iyo xisbiyo badan iyo doorasho coda hadda waxay suurta gashay 2021 October despite wixii la isku dayo taas waa midda labaad oo mahado iyadana muhiimka waxa weeye mashruucan wuxuu u baahan yahay lahaansho maxalli ah dadka meesha ku nool jooga dantooda isku xiran tahay wax wada leh fahmaysaa lahaansho iyo ilaashasho iyaga ah wuu u baahan yahay waa midda labaad su'aalaha macaanto dhan aynu ka hadlaynay misaana la yeelaa maxaggaa laga yimaada waa su'aalo ka badan kuwo xalkooda laga keeni karo meel kale markaas si kasta oo ay muqdisho u tahay magaalo madaxdii si kasta oo dowladda federaalka ahi
ay magacii soomaalida iyo dowladnimada ay iyadu muunad ugu tahay iyo hormuud haddana masalooyinka siyaasiga ah iyo doorashada iyo xuluusha yaalla micnihii meesha la yiraahdo Garowe iyo Burco iyo Kismaayo iyo Baydhabo iyo Cadaado ma xallin karto maba oga hadday rabto marka inuu lahaansho maxalliyana yeesho dadkuna waqti u qaato waxooda siday ula noolaan karaan marka qaarkood waxa anagu xalal badan hadda aan micnihii arrimo badan adag kaga soo gudubno wax isku dhex karis ah laakiin qanaaco maxalli ah haysta oo dadku waxoodii ay rabaan marka horta mushkiladaha iyo su'aalaha yaalla inaynu halkaa isugu luga duwanno oo qof iyo cod aadno su'aalaha iyo package-ka iyo arrimaha ay la imanayaan arrimo xalkooda meel kale laga soo yeerin karo ma aha horta taasna waa arrin kale aan rabo inaan maarata aan hoosta ka xariiqo arrinta kale oo iyadana aan isleeyahay waa aad bay muhiim u tahay waxa weeye Soomaalidu muddo badan baynu waxaan ka hadlaynaa hadda ka soo qaad carta ilaa yoomana hada dowlad kasta iyo transition kasta waxa weeye waddanka hal xasiliyo siyaasiyiin amni ahaan dastuur loo dhan hal qabto dib u heshiisiin hal qabto doorasho qof fiican hal qabto ajandayaashaasi mar walbaba ilaa iyo madaxweyne Cabdiqaasim ilaa iyo haddeer ama waxa la dhigto ama shir ha looga wada hadlo ama campaign ha lagu galo ajandayaasha Soomaaliya miiska saaran baahay wax badan oo haddeer de waa la sameeyay horumar laakiin arrimahaas oo arrimo aan dhigano ajanda hebel waa laga takhalus ilaa hadda ma jiro macnaheedu waxa meesha soo socda qadiyada electionku qadiyad top down ama noqon karo haddaynu ka hadlayno qof iyo cod marka waxa fiican iyadoo organic inuu hoos ka timaado waayo waxay rabtaa in hoos laga soo dhuujiyo qanaacado dadku ay hoos ka timaado fahamka uu hoos ka yimaado wixii oo dhismay baa kor isku taagi kara waxba kama duwana seeska guriga loo sameeyo marka fiinta kore oo maaragtay kama sameyn karo niyo waxaan rabaa inaan uga baxo hadda shuruucda iyo hindisaha xamar laga wado oo macnihii yani kelmadda isticmaal xamar laga wado ee dowladda federaalka ay wado iyaga dawlad loo qorxoonaat laakiin anu waxaan isleeyahay waaqaca wadiiday waxaa ka mid ah hadda Puntland Soomaaliya hadda xaggaba dhig Puntland election ay qabat xisbiyay samaysatay infrastructure iyo hay'ado doorasho jira qawaaniin waxba u jira shaqaa qabsoontay meel ba wax yimaadeen haddii marka dastuurka cusub waxaa soo dhan uu ka dhigayo nala fooydiya waxba ka jirin haddii hal gudi doorasho uu maamulayo doorashada waddanka dhan haddii waddanka dhan ay laba xisbi ama saddex xisbi ka jirayaan mawaaqici baa ama waaqici ma waa macnihii anu waxaan qabaa in si waaqici ba ahayn laakiin su'aashu waxay tahay waay aynu sharci u dejinaynaa sharci kow hadda aan u dejinaynaa burburinaya wax inoo jiray waxa inoo jiray waa inaan wax ku dul dhisno ma ogtahay hadda xisbiyada Garowe ka soo samaysmay very simple bay dhabay wax ka abaabuli karaan saaxiibo kale fikrad baa la isu keeni karaa merge baa dhici karaa Kismaayo sidoo kale macnihii kuwa xamar jooga oo nationalka aba hoos iyaga laftigooda u sii day kara marka wixii jiray haddaad sharcigu u baabiinayo ama hindis sharciyeedku u baabiinayo wax inooma kordhayaan marka anu waxaan isleeyahay middaas horta philosophically baan u challenge karaya laakiin more importantly waxaan arkaa inaan realistic ahayn waddan burburay kala tegay kala irdhoobay qolol kala galay qololba maaragtay fikirkiisa iyo caadifadiisa iyo aragtiisa iyo difaaciisa iyo tabashadiisa oo qabo saddex xisbi inama qaado laba xisbi inama qaado marka anigu waxaan u arkaa kulay de waqtigeedaan siin doonaa laakiin de wixii meel ka qabsooma si kastoo siyaasiyiin lagu kala duwan yahay in la appreciate gareeyo wixii samaysmayna lagu dul dhiso mahada waxaan ugaga baxayaa Somaliland doorashada ay muddo ku jirtay oo nooga horeysay waxaan kuu sheegayaa hal yaaba dad badan inaysan ogeyn anigu waxaan ka mid dadka farsamo ahaan electionka muddo ka agdhawaa ama ka shaqaynayay fakarka shuruucda haddii alla ku runaya farsamada tubta practiceska intooda badan iyaga ka soo qaadanay qofkii haddeer doodaa laga yaabo inuu wax ka keeno wax ku challenge garaynaya fikradda saddexda xisbi ah halkaasay ka timi ya fikradda saddex xisbi Somaliland baa iska lahayd
annagu waa aragnay cunfi looma arkin waxa loo arkay wax fiican inay waa la dabaqay in haddeer maxaa dowladda federaalka hadda isku dayadeeda shuruucda waxay ahayd in xisbiya laga bilaabo Somaliland iyo Puntland waxay ka midaysan yihiin in ururo lagu bilaabo kan wuxuu ogol yahay in urur lagu bilaabo ururkana uu tartanka dowladaha hoose uu ka qayb galo sharciga cusub kadibna ay ka soo dhex baxaan 3 xisbi marka fikradda ah in ururo lagu bilaabo kabacdina 3 xisbi ka soo dhex baxdo waxaasoo xaggaas ku yimid waxaan dadku uusan ogeyn wax badan oo shuruucda ah macnihi waa laga badbedelayaa laakiin wax kuu samaysan waay meesha dulucdeeda aan u socdo waxa weeye macnihii taaska hadalkeedii ammaanteeda uma jeedin waxaan u jeedaa waxa garowe Puntland ka qabsoomay wuxuu si sahlan uga qabsoomi karaa galmudug waxa galmudug ka qabsoomayna wuxuu si sahlan waa shaqo u qabsoontay Hirshabeelle marka fakarka noocaasa oo ah in dabba dab lagu daaro oo Soomaalidu wax kala dheehato isu tagto wax kala barato wuxuu walaalkaa uu ka khaldamay aadan adigu ku celin wixii isaga u shaqayn kara laakiin adiga wacigaaga aan ku shaqayn karin adigu u toloto sida ay tahay anigu waxaan arkaa fakar noocaasa inuu maartay Soomaalida uu shaqayn karo aad iyo aad ma tahay Cabdinaasir Buraale in falanqeyntaas iyo aqoontaas la xiriirta doorashooyinka Puntland oo maartay aad nala wadaagtay maamulka podcast waxa soo saaray Somali Public Agenda podcastigan iyo podcastidana kale oo dhan waxaad ka dhageysan kartaan baraha aan ku faafino podcastiyada sida Spotify Apple Podcasts iyo meelaha kale iyo sidoo kale YouTube oo aad ka daawan kartaan iyadoo muuqaal ah waxaa sidoo kale ka heli kartaan website-keena somalipublicagenda.org